shintirsiga colaadda Ruushka iyo Ukraine 60 maalmood iyo ayaamo ayay sii maraysaa mana muuqata hadda heshiis la wada gaaray xabajoojin dhaqan gashay iyo wada hadallo muuqda oo Kiev iyo Moscow u socda fariimaha labada xafiis ee ugu sareysa labada dal ka imaanaya midka kale waxa uu dirayaa fariin muuqata oo haddii wada hadal loo diyaar garoobayo ay tahay in colaadda la joojiyo in burburinta magaalooyinka laga hortago iyo in xal loo helo barakaca bulshada Moscow mar walba wada hadal wax ku ool ah oo hindisihiisa iyo hal abuurkiisa xaggeeda ka yimid ayay diyaar u tahay inay aqbasho balse maankeeda kuma jiro miirkeedana uma hoggaansami doono fariimo ka yimid galbeedka oo Ukraine lagu soo shubay taasna way adag tahay inay ku aqbasho gola ka hadal iyo garnaqsi intuba NATO dhaqdhaqaaq military ayay in dhaweydba ku howlaneed qorshe ballaarin oo isbahaysigana waa uu socday talaabooyin u muuqda kuwo lagu baritaarayo dalal ka baqdin qaba Moscowna waa ay socdeen balse NATO ilaa iyo hadda ma u bareerin jawaab sida muuqata ku wajahan Kiev Moscowna dhibi karta tan iyo markii colaadda iyo xaaladuba ay sida tan noqotay Moscow ayaa muujinaysay inaysan colaadda u dhaxaysa Ukraine iyo iyada aysan dunida soo faragelin karin wixii wada hadal waa halkeeda balse handadaad hawsha tani wax kama tarto caga juglayn way uga sii daraysaa culayska colkuna halkiisu ka sii socon doona ayaa marar badan laga soo xigtay hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin NATO maalmahan dhaqdhaqaaq iyo dib u habeyn hanaankeeda howlgal ayaa muuqanayay hadda waxa ay sameynaysaa wax u muuqda wax loogu yeeray dhoolatus ciidan balse weli ma ahan midkii guud ee lagu yaqaan isbahaysiga sababtoo ah isbahaysiga oo midaysani uma wada dhamatani laakiinse waxa loogu yeeri karayaa dhaqdhaqaaq iska caabin wax ku ool ah u diyaar garoobaya mana muuqata inay tahay fariin ku socota Moscow muuqaalka aad arkaysaan waxa uu muujinayaa mid saacadihii ugu dambeeyay isbahaysiga difaaca ee NATO uu ku soo saaray hubka sida keligii isku haga oo dhaqdhaqaaq kooban ka sameynaya qaybo ka mid ah gobolka taas oo la aaminsan yahay in ujeedka ugu weyn uu yahay mid lagu handadayo Moscow Putinse waxa uu dheer fariimihiisa maangalka ah ee ku wajahan Kiev burburinteeda muuqaalkan ayaa waxaa lagu arkayaa gaadiidka gaashaaman ee militariga oo wata dhoolatus ciidan iyo dhoolatus difaac oo wada jira sareeye guuto Alexander Kron ayaa yiri tani ma dhici lahayd haddii Ruushka uusan ku duulan Ukraine markasta isbahaysigu dagaal iyo dareenba diyaar buu u yahay annagu qorshayaasheedu way cad yihiin kuwa hortabin u leh iyo kuwo aanu ku qiimayna duruufaha markaas jira ayay inta badan qusteeyaan tani waa diyaar garow caadi ah waxaana markasta qorshaha noogu jira inaanu jirin dal kamida xulafada oo si sahal loogu soo duuli karayo jananku waxa uu qirayaa in xulafada oo midaysan aysan hadda baqdin ka qabin Moscow balse ay tani muujinayso goor walbaba in gaadiidkooda iyo gantaaladooduba ay gaaf wareegayaan colka ka imaanaya dalka isku dayaya inay wax wiiqaan caadi ahaan waxay had iyo jeer qaadataa waqti yar in qof kasta uu galo maskaxda taasi ma aha arrin hadda jirta marka dhabnimada xirfad yaqaannimada cidhiidhigan in hadda tani ay noqon karto waxna laga rabo waxaa loo baahan yahay oo hadda dabcan muuqata isla markaana jira sidii loo heli lahaa habab kala duwan oo difaac ah oo gobolka iyo qariiraduba ku socda